Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhalinyaro. Muuqaalkan wuxuu daba socdaa muuqaalkii ka horreeyay ee aynu kaga warramanay sidee loo samaystaa akoon TikTok ah oo leh beta program ama qaybta lacag samaynta. Muuqaalkii ka horreeyay waxaan kusoo baranay sida akoon loo furto TikTok ah kaasoo aad ka samayn karto lacag adiga oo adeegsanaya ama adiga oo ka samaynaya lacagta muuqaalada aad soo geliso TikTok. haddaba muuqaalkii ka horreeyay haddii aadan soo daawan fadlan waxaan ku leeyahay soo daawo si aad meesha aanu marano aad noola fahanto. Haddii aad hore u soo daawatay waa good way. Okay, haddaba waxaynu ku ballansanayn sidee baynu u heli karnaa 10,000 followers iyo 100k views ama 100,000 oo views si baad u heli kartaa muddo 30 maalmood. Haddaba mowduucaas ayaynu geli doonaa iyo shuruudaha TikTok uga yaala. Haddaba sidee baad u heli kartaa ama sidee baa loo gaadhaa 10k followers iyo 100k ama 100,000 oo daawasho macnaha celceliska hal muuqaal maaha muuqaalada marka la isku wada geeyo 30kii maalmood ee u dambeysay sidee baad u heli kartaa 100,000 oo daawasho waa shuruudaha aad ku soo buuxinayso TikTok. Horta TikTok markaad doonaysid in aad wax ku soo gudbiso ama inaad ka samayso lacag qaybta cusub ee imika loo sameeyay beta programka la yiraahdo waxaad u baahan tahay shuruudahan halkan ku qoran. Number 1 muuqaalku waa in ugu yaraan gaaraya 1 minute markuu ugu yaryahay 1 minute ha socdo ama 60 second waxa la yiraahdo ha socdo muuqaalku oo ha iska soo dhigin mid 23 second soconaya 24 second 50 second waxaas oo kale ha soo dhigin. Muuqaalka la doonayo in aad soo dhigi kartaa oo kuma ona socod maxaad u soo dhigtay oo TikTok shuruud kaaga ma dhigaso ma soo dhigi kartid laakiin muuqaalka wax lacag kama sameeysid. shuruudahana waxaa ka mid ah in muuqaalkaagu 1 minute iyo wax ka badan noqdo sida tusaale 1 minute 5 minute 6 daqiiqo wax noocaas oo kale ah oo ay bari dhaweyd bay kordhiyeen iyaguna. Marka waxay doonaysaa muuqaalka daawashadiisa iyo xayeysiinta la soo dul saaraya ay waqti ay u wada helaan. Okay, taas waa ta koobaad. Ta labaad waa inaad adigu iska leedahay muuqaalada waa inaad adigu iska leedahay. Halkani waxay u baahan tahay fursado fara badan runtii. Muuqaal haddaad ka soo qaadato YouTube ama meel kale ama dad kale ay leeyihiin runtii waxaa jirta wax la yiraahdo copyright ama xuquuq uu iska leeyahay qofka marka hore lahaa muuqaalkani. Haddaba muuqaalada inaad iska ilaaliso aad u wanaagsan iska ilaali inaad muuqaal inta soo download garaysato ama TikTok ka soo dejiso kadibna aad TikTok dib ugu soo celiso waa mamnuuc iska ilaali kaas. Soo kale muuqaal qof kale leeyahay ama meel kale sida Facebook YouTube meelaha inaad ka soo qaadato soo kale waa mamnuuc. Hal mid baad ku soo qaadan kartaa kaliya waxaad soo qaadan kartaa in aad muuqaalka 7 daqiiqo ugu yaraan ugu badnaan 7 daqiiqo inuu socdo. Muuqaalka waxaad soo qaadan kartaa kaliya in uu 7 daqiiqo socdo kadibna aad edit garayso jarto ka bacdina aad qaybta xigta ka saarto ka bacdina 5 daqiiqo ilaa 6 daqiiqo markuu socdo baadna aad jarto. waliba daqiiqada ku sheegaya ma aha minutiyada iyo daqiiqada kala saar. Minutiyadu waa kuwan 1 2 3 loo tiriyo ilaa 60 gaara ee saacad soo ku buuxsanto. minutiska kuma sheegayo oo sida tusaale halka minute ay u sareeyaan ku sheegayo kala ama 60 second kuma sheegayo sekimada caadiga ah ee yaacay ee 1 2 3 4 5 6 7 soo qorma ayaa waxa loo baahan in ay markay 7 gaaraan inayna dhaafin hadday dhaafaan copyright ayaa lagu soo qabanaya hal mar bay dhaafi karaan muuqaaladaas waa marka adigu aad muuqaal aad leedahay ama face-kaagu uu muuqdo aad muuqaalka sharaxayso ama wax ka sheegayso ama aad oranayso muuqaalkaasi ayaa aad macnaha aad ka bixinayso reaction waa okay muuqaalkii waad soo gaabini halka face-kaaga ama wajiga hortiisa ayaad soo dhigi ama korkaad soo dhigi ka bacdina markaas aad ka sheekayn taasi waa okay cid kuma diiso muuqaalkaas intuu doono socon karaa wana share kartaa adigoon waxba inta soo kaliya soo dhigta inaad aamusto loo baahna inaad hadasho oo wixii falanqaysaba loo baahan yahay okay taa iyadoo samayn karta laakiin haddii aadan face-kaaga ama sawir ama waxyaalo kale aynan la soconin oo macnaha aynan meesha ka muuqanin waxa suurtagal ah hadduu 7 daqiiqo dhaafo in lagu soo qoonay 100% wax la yiraahdo copyright taan inaad iska ilaaliso wanaagsan marka muuqaalada ayaa kula talinayaa xaga dambe kaaga sheegi doona marka tricks aynu isticmaal doono insha Allah si aad u soo gudbiso wax sharciya oo waliba runtii 10k followers kana ku gaarsiin kara okay tasdaxaad waxa tahay loo baahno wax sawir la yiraahdo looma baahna soo tusaale 5 sawir ama 6 sawir baad soo qaadi ka bacdina waa soo daba dhigdhigi marka dabeetana waxa oran waa video ma ka dhigay sawiradaas oo kale looma baahna waxa loo baahan yahay waa muuqaal caadi oo la duubay ama aad wax ka warramaso ama wax sharaxayso
okay ka afraad wuxuu noqonayaa waa inay muuqaalada daawadaan ugu yaraan 1000 qof. muuqaalada hadaba loogama jeedo laakiin muuqaalka laftiisa muuqaalkiiba macnaha waa in halkii muuqaal ee aad soo gudbisay ee aad soo gelisay ay daawadaan 1000 qof. meeshan waxay uga jeedaan macnaha muuqaalada khasab maaha haddii 1000 qof daawan waayaan inaad gaari weydo maaha. macnaha haddii 1000 qof daawadaan muuqaalka lacag waad ka samaynaysaa oo macnaha limitkii lacagta laga sameeyay ayuu gaari. qaar baa gaari waayay 200 300 400 joogsan doona ama 100 joogsan doona no problem kaama baxsid. laakiin waa in muuqaalka aad doonaysan lacag ka samayso waa inuu gaaraa 1000. muuqaalkaas hadduu 1000 kor u dhaafo lacagtiisa waa u furanta. okay taasina isla fahanaa filaya oo waa in 1000 qof ugu yaraan daawadaan macnaha muuqaalkii kolkaa maaha khasab muuqaal walba inay 1000 daawadaan laakiin muuqaalka aad doonaysan lacag ka samayso waa inuu 1000 qof daawadaan. okay haddaan soo dhaafno oo ay tashanaad nimaadno muuqaalada aad soo gudbinayso iyana noqon ku xayeysiin la socdaan oo ama xayeysiin dul saarantahay asalkooda hore ama adigu aad xayeysiinayso alaab waad xayeysiin kartaa oo meel waad xayeysiin kartaa laakiin macnaha in adiga laftaadu aad xayeysiin ama waxyaalo kale oo ayna TikTok heshiis la ahayn aad wado oo aad soo gudbinayso lama ogolayo soo kale. tilixaad haddaan u gudubno muuqaalo tayo leh soo geli. muuqaalka marka aad soo edit gareyso runtii waxa ugu wanaagsan wax lagu edit gareeyo CapCut oo CapCut ku kula talina inaad ama mobile ama computer isticmaalayso inaad CapCut isticmaasho. haddii aadan aqoon sida muuqaalada loogu jarjaro ama loogu edit gareeyo commentiga hoose ayaad kusoo qori doontaa muuqaal ayaa isagana si fudud insha Allah kaaga diyaarin doona. laakiin waxa ugu wanaagsan oo la isticmaalayo imika oo aad u fudud waa CapCut. marka CapCut isticmaal markasta marka quality-ga ama tayada uu CapCut uu kugu upload gareynayo ama kugu export gareynayo muuqaalka markaad dhamaystirto waa quality heer sare ah oo HD ah. marka waxaan kula talin lahaa CapCut isticmaal muuqaalka soo gelinaysa muuqaal tayo leh ha noqdo wax shucaac leh oo liita ayuu ka noqon. intaas oo shuruudaha uga yaala xagga TikTok waxaan ku raacinayaa waxa la yiraahdo tricks-ka. ugu horeyn waxa horta muhiim ah 90% waxa wanaagsan inaad xirfad leedahay ama inaad wax soo gudbiso. maxaa kamid ah wax soo gudbin karto waxa kamid ah in aad arday wax baraso ama aad dad wax baraso waxbarashada noocyada kala duwan sida luqadda Ingiriiska xiisadaha caadiga ah waxa aad soo gudbinayso waa good oo aad leedahay wali arday kugu xiran waa sax oo akoon hore TikTok laan jirtay waad arday soo wareejin kartaa xoran kartaa xaggan ayaan hadda u guuray halkan kale taa waad ku soo gudbin kartaa waa soo kale inaad xirfad kale oo gacanta ah ama xirfad nooc kale inaad leedahay oo soo gudbiso soo kale iyadna waa good soo kale inaad soo gudbiso sida tusaale adigoo ka warramaya social media sidee lacag looga sameeyaa sidee wax loo qabtaa sidee wax loo edit gareeyaa sidee videoda loo edit gareeyaa waxa aad ka sheekeynayso oo la xiriira macnaha dhinaca iyo social media wixii social media hadda aqoon u leedahay oo rabto inaad soo gudbiso oo soo gudbin kartaa adigoo hadlaya wixina sharaxaya khasab ma markaa fiiska ugu muuqdo mar walba shuruudo kuma jiraan in hadhow update gareyn doonaan war ma hayno laakiin hadda wajigaaga waa in la arkaa khasab maaha oo kuma jirto shuruudo. marka waa inaad soo gudbisaa xirfado ama waxyaalo aad aqoon u leedahay waliba dadku xiiseynayaan. inta haddii aadan wax aqoon leh waxaad aqoon u leedahay oo aad soo gudbin karaysaa haddiina jirin wado kale ayaad samayn kartaa. muuqaalada ama waxyaalaha hadda socda ama waxa loogu hadalhaynta badan yahay ayaaba muuqaal ama comedy ka sameeya ama soo kale ka sameeyeen muuqaal dhiirigelin oo kala ama ka sameeya muuqaal waxaasi ka falcelinaya oo ka sameyn kartaa waad soo diyaarin kartaa muuqaalka oo tusaale waxaad sameyn kartaa muuqaalkii waad sidaan ku sheegay waad jarjari kartaa waad yareyn kartaa waxyaalo kale ayaad ku dardari kartaa ka bacdina muuqaalkii ayaa mid ka dhigaysa aan wax copyright lahayn laakiin dadkina soo jiidan kara. marka 90% waxa wanaagsan waxa la hadalhayo ama waxa hadda wadanka gudihiisa ka socda ama runtii caan ah waqtigaasi aad joogto ayaa muhiim ah in aad ka waranto haddii aadan wax xirfado haynin macnaha tricks-kaas isaguna wanaagsan. soo kale waxaan ku raacinayaa ha ku darsanin sida tusaale codadka ku jira TikTok oo kale ha soo dul saaran haddaad codad hore ugu jiray TikTok aad soo geliso TikTok runtii way u duuban tahay cid baa iskale xuquuqdeeda codkaasi ama muusiga iyo codka markaa looma baahna mid aad wax ka soo bedeshay luqadda ama soo bedeshay waxaan jeedaa soo bedeshay codka ama aad soo edit gareysay mooyaane mid aad si toos ah muusiga iskaga soo qaadan kartaa ma jiro iska ilaali muusigeeda looma baahna waayo waa wax xuquuqdooda leeyahay
waxaad arki doontaa muuqaalkaas wax lacag ka sameeyeen oo qofkii original lahaa oo isagu lacag dhabal uu ka sii sameyn doono isticmaalkaas isticmaashay darteed. taasi waa taasi. soo kale hadaba tricks kan loo isticmaali kartaa haddii uuna kuu furnay buttonka live-to waxaad ka doontaa qaybta helping-ka ama qaybta caawinta ee TikTok ay iska leedahay ayaad kala hadli doontaa kadibna waxaad ku oran doontaa ima furna buttonkii live-ku. marka waxa wanaagsan waxa la yiraahdaa live-ku aad buu wanaagsan yahay in dadka live ku jira aad u tagto kabacdina aad live-kooda aad u like gareyso u share gareyso follow-na aad u siiso aad bay iskaga fiican tahay. waayo waxaad ka helaysaa meeshaasi followers baad ka helaysaa marka ay dadkaas weli live ay xagga sare ku soo saareen inta badan waxaad helaysaa followers iyo views waa meelaha ugu dhaqsiyaha badan weli aad bay u dhaqsiya badan yihiin markaad nasiib u hesho inaad xagga sare soo korto. marka meelaha live-ka badan lagu jiro aad bay u fiican tahay live-kana gal kabacdina halkaa waxaad ka soo heli doontaa insha Allah followers iyo views labadaba. soo kale waxa aad views badan ama followers aad ka heli kartaa haddii aad leedahay sida YouTube, Facebook meelahaas oo kale oo aad linkiga aad ku soo TikTok taada muuqaaladii aad ka sameysay aad iyaga laftooda intaad geyso deetana dadkii ama Telegram ama WhatsApp ama meelaha kugu jiray aad ku share gareyso kabacdina dadkaasi dib ay ku soo raaci doonaan marka iyaguna halkaas waxaad ka heli kartaa views badan iyo followers. soo kale waxa jira trick kale oo iyadana la isticmaalo trickta kale la isticmaalo waxa weeye markaad muuqaalka TikTok aad soo gudbinayso meesha wax lagu qoro markaad marayso ama meeshaas lagu qoro title-ka markaad marayso waxaad sameyn doontaa muuqaalka aad ka warramayso markaad waxaad ka warramayso aad qorto ayaa waxaad raacin doontaa hashtag wax la yiraahdo waxyaalaha ugu muhiimsan ama ugu fiican waa hashtag waxaana hashtagida ugu fiican ama ugu badan ee la isticmaalo kamid ah FYP oo loo soo gaabiyo for your page soo kale for your page baad qori kartaa kadibna hadana hash baad oran waxaad qori hadana soo tusaale viral video oo kale waad qori kartaa hadana hash kale aad qori waxyaalaha ugu caansan ee dadku isticmaalaan ayaad qori doontaa insha Allah taala hadana hash kale ayaad raacin doontaa kabacdina waxyaalaha loogu hadalhaynta badan yahay ama waxyaalaha inta badan TikTok ku soo noqnoqday ee dadku adeegsadeen ayaad iyadana hashtag ahaan u isticmaali doontaa. soo kale mention waa isticmaali kartaa waxaad ku mention gareyn kartaa qof caan ah ama dad caan ah ayaad ku mention gareyn kartaa adigoo taabanaya calaamadda ama inta tiraahdo ayaad hebel qori doontaa kabacdina saas ayaad muuqaalka ku soo publish gareyn doontaa. tricks-ka aan ku soo sheegay runtii waa tricks aad u wanaagsan inta haddaad adeegsato 30 maalmood gudahooda waxaad ku gaari doontaa 10,000 ee follower inta waad ku gaartay waliba haddaad dadaasho. trick kale ayaan kuu sheegay oo trickta tan ugu muhiimsan ah inta ugu badan dadka looma sheego oo ma arag dad aan ku dhiirinay muuqaalada usbuucii waa inaad soo gelisaa ugu yaraan 2 muuqaal markii ugu yartahay waliba 2 muuqaal kulama taliyaan ugu yaraan 3 muuqaal soo geli haddii laakiin waxa uu yahay sida waxbarasho oo kale ama wax time qaadanaya ugu yaraan 2 muuqaal soo geli oo isla muuqaalkaaga 2 u kala qaybi markaas haddii muuqaal dheer aad soo geliso muuqaalka dheer 2 u kala qaybso usbuucii 2 jeer soo kala geli 2 maalmood oo isku xiga ama 2 maalmood oo maalin dhaxayso soo geli mar walba waxa kula talinay waxa la yiraahdo joogteynta isbuucii waa inaad ugu yaraan 3 muuqaal soo gelisaa oo midkiiba ugu yaraan uu ka kooban yahay 1 minute wana iska fududayn hesho muuqaalada soo kale. marka TikTok aynu hadii runta isku sheego meesha waxaad u joogtaa waa shaqo tabtii shaqadii suuq oo kale weeye waa inaad caadi u shaqaysataa waa inaad si niyad leh u shaqaysataa waa inaad xaadir ahaataa. mar walba waxaan kugula talinaa isbuucii ugu yaraan 3 ugu badnaana 5 muuqaal in isbuucii soo geliso oo 2 maalmood kala isbuuc aad fasax iska ahaato. marka joogteyntu waa waxyaalaha aad ku helayso 10k followers iyo soo kale 100k views waxa kugula talinaa mar walba joogtee muuqaalada aad soo gelinayso hashtag iyo missionka labadaba isticmaal muuqaal tayo lana soo geli wax la hadalaya ama wax hadal xiisanaya soo geli haddana wax xirfad aadan hayn inta haddaad adeegsato runtii waxaan ogahay 30 maalmood gudahood inaad heli doonto inaad gaari doonto 10k followers iyo 100k views inta mid aad bay u fududahay waliba TikTok marka la joogo aad ay iska fududahay waad gaaraysaa. marka hadda 30 maalmood ugu horeeya maalinta aad furtay ka bilaaban sameey waxa laga yaabaa inaad bil aanad haleelin waxa laga yaabaa inaad 2 bilood aanad haleelin waxa laga yaabaa inaad 3 bilood haleelin khasab maaha inaad 30 cusha ugu horeyso buux maaha laakiin waxa la tirinayaa mar walba koob la soo oranayaa waxa laga bilaabayaa maalinta la marayo 30 maalmood ee la soo dhaafay baa la oranayaa
ninkaas ma keenay wax 10k followers soo kalena ma keenay 100k views intaas laga doon dadka qaar waxa jira gaara ku maraya 12,000 13,000 ama 50,000 oo ku oranaya weli noloma furin sabab baana jirta 30 maalmood gudahood 10k ku gaadhin 30 maalmood gudahood 10k ku gaadhin iyo 100k view waxa laga yaabaa in uu isagoo 30 maalmood maraya inuu 10k gaadho waxa laga yaabaa in uu isagoo 45 maalmood maraya 10k gaadho markasta 10k waxa la doon lagu base gareeyo 30 maalmood waxaan filayaa inaad aad u fahanteen wixii aydan fahmin commentiga ayaad ku soo qori doontaan insha Allah taala wassalaamu calaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh